السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما نغيات دوبان سلامي عشان وحكو سابسين هاي سيدين يوتيوب كينا أنا قصة ملهن أدسنسيغا أنا لعب قصة ملهن أدسنسيغ معني سوى حتى فيديو كأسوق اللي سي أيها وحلو قصة منيا أدفرتايزين أيها لقود حدريا كأسو فيديو داوشة ديسا إنتي نقطة أيها قادنيسا أو قيمها إن أدسنسيغا قصة ميان أدسنسيغا شروطيسا حوغانيسا وحيابا بدا وحلقا باهينا ليدا هاي إن كون سبسكرايبنا ليدا هاي waxa lagaga baahan yahay inaad leedahay shuruudo badan oo ka mid tahay in viewskaagana oo badan yahay kadib markaa xitaa viewskaaga badan yahay oo subscribe-kaaga kun gaarin lacagtaada waa suganaysaa intii subscribe-kaaga badanayo inta shuruudaha ka ogahay waa intaas marka waxaan tusaya insha Allah bidna karim sida u samaysan lahayd marka aad tuso kadib waxaad samaynaysaa youtube-kaaga ayaa login ku samaynaysaa qaybta browser-kaaga kadibna qaybta sawirka ayaad ku dhufanaysaa qaybta sawirka markaa ku dhufatid waxaa leedahay create an studio ayaad kusii dhufanaysaa kadibna waxaad ka doonaysaa meesha ku qoran tahay channelka meesha waa laga maamulo dhan waaye adsensiga iyo anime iyo daqiiqadaha badan inaad ka beesatid marka waxaan tegaynaa meesha payment content ayaad tegaysaa waxaad ku dhufanaysaa active adsense account ayaad ku dhufanaysaa si au active garisid account-ka kadib ma ogoshahay wasii raacaysaa tafaasiisha oo dhan naga sii ayaan leenahay sida aan usii wadno kadib markaa naga sadhaadid wax yar ayaa sugaysaa wuxuu ku gudbinaya stepkan wuxuu ku leeyahay account-ka waxaad isticmaalaysaa emailkan sida hadda isticmaalaysid emailkan aan isticmaalnay tusaale ahaan laakiin emailkaaga saxda ayaad u isticmaalaysaa kadibna wuxuu kuu soo qoray sida emailkii marka wuxuu kuu soo step 2 waxa laga wadaa yeero website marka waxaa noqonaya youtube-kaaga account-ka ayaa noqonayo haddii aad rabtid inaad hore u isticmaasho mid cusub awoodid laakiin aniga waxaan leenahay emailkan ayaan rabnaa inaan ku sameyno yes ayaan leeyahay si aan emailkan nafsigiisa youtube-kan ku leeyahay galino meeshan website-kiisa automatic wuxuu isku bedelay ujeedaa channelka koodkiisa isku bedelay save and continue ayaa leedahay sida u sii wadid kadib save continue markaa dhahdid waxaad ogaanaysaa waxaad buuxinaysaa informationka lagugu talagalay hadhow oo paymentiga aad ku qaadan lahayd waxa lagaga baahan yahay waxa meeshan ku buuxinaysid waa inay ahaadaan sharcigaaga adiga aad leedahay dhalashadaada waqtigiina buuxisid meeshan waxa laga dalbaday inaad business iyo ma u baahan tahay kadibna waxaad buuxinaysaa magacaagii saddexda magaca ayaa buuxinaysaa meesha magacaad ku qoraysid waa magacii aad wax ku qaadan lahayd ciwaankana waa lagaga baahan yahay meesha waddanka aad joogtid kadibna waxaad ku qoraysaa meeshan ciwaankii ama xaafadii aad markaas deganta adresskaaga laakiin inta badan dadka Soomaali jooga waxay ku buuxsanayaan ciwaan kale ayaa fiican waddan kale qof kale joogo in ay ku buuxsadaan ama ciwaanada beenta oo adreska la isticmaalo Mareykanka kale inaad isticmaashid oo kale ama wadamada dadka qaarkood oo Yurub joogaan ka qaadid kadib bostokorka lagu weydiinaya bostokor ayaan iska geliyay oo waddanka kadibna waxaa leeyahay waxa lagaga baahan meeshan telefoonka adsensiga lagala soo xiriirayo ama wixii warbixin telefoonka ugu soo dhici lahay ayaa meeshaas ku qoran intana labada jeer ayaan saaraynaa kadibna saddexdaas ayaan iska saarayaa kadibna waxaa leeyahay apply ayaan leeyahay oo waa jeerkaas oo loo baahan yahay ka tagay midaan ka tagay ina saaro kadibna submit aan dhaho mar labaad kadib submit markaa dhaano weli cilad way jirtaa marka waxaan fiirinaynaa kor waxaan naga qaldan inaan kor u laabanaynaa si aan ogaano kor wax naga maqan intaan waxa naga maqan waqtigii waddanka saacadda waddankaas aad joogtid ayaa naga maqan marka saacadda waddankaaga ayaad soo ogaanaysaa sida hore aan u sheegayba zone time aan ugu sheegay waa soo saaray kadibna submit ayaan leeyahay sidaas marka waxaa ku qaadanayaa adresskii iyo wixii dham geliyey kadibna wuxuu ku leeyahay jeega saaraysaa accept ayaa leedahay ma ogoshahay kadib waan ogolnahay ayaa leenahay sidaan u qorin laakiin shuruudahaas dhan waa in akhrisaa waxay Google AdSense-ga raalligaya iyo waxaan raalliga ahayn shuruudahaas hadda akhrisidna hadhowna kuma xadgudbi kartid kadibna waxaa ogaanaysaa waxa lagu leeyahay AdSense-gaaga waa la aqbalay in mataqaanaa la aqbalay si toos ah akoonkaaga accept loo sameeyo usbuuc gudihiisa ayaa lagugu soo active gareynaya ku helaysaa warbixintaada marka hadda videoyadaada AdSense-ga way shaqeynayaan laakiin wax lacaga ma sameynayaan laakiin markii insha Allah binakin emailka noo soo dig ayaad ogaanaysaa laakiin waxaad ogaanaysaa Google AdSense-ga inta badan dadka Soomaaliya ma anfacayo laakiin insha Allah binakin barnaamijyo badan oo sida Google lacag looga shaqeeyo ayaan tusi doonaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh wa jazaakumullahu khairan.